madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii uu hogaaminayay ee socdaalka shaqo ku marayay qaar ka mid ah gobolada bari ee Soomaaliland ayaa mashaariic horumarineed waxa uu ka furay deegaano ka mid ah gobolkaasi Sool. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigan uu hogaaminayay ayaa waxay ka fureen ceel biyood deegaanka loo yaqaan Tuulo Samakaab oo ku taala gobolkaasi Sool. cilbiyoodkan oo ah mid wax weyn ka tari doona baahida deegaankaasi ayaa ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore. Tuulo Samakaab waxaa maalgelisay hay'adda Islamic Relief UK waxaa loogu talagalay in ceelka biyaha looga qaado magaalada iyo dadweynaha deegaankan oo dhan ku nool. waad u jeedaa dhammaan wixii agabkii xooluhu ku cabbi lahaay oo dhan waa yaaliin. waxaad kaloo maanta noo dhagax dhigi doontaa inta la rabo in magaalada lagu geeyo. sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Islamic Relief oo mashruucan fulisay oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda ceelkan uu leeyahay. ceelkani wuxuu ka kooban yahay saa u jeedo structure-kii oo xooluhu meeshay ka cabayeen, taangigii biyaha oo 200 oo fuusta qaada, solarkii oo saaran oo hadda shaqeynaya aan u jeedno, generatorkii haddii loo baahdo habeenkii xooluhu inay ka cabaaneen. madaxweynaha qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa Ilaahay ka baryay in ceelkaasi uu noqdo mid anfaca guud ahaanba shacbiga ku nool deegaanadaasi iyo xoolaha intaba. madaxweynaha qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa hadaladiisii ka mid ahaa aad baan ugu mahadnaqaynaa cid inaga caawisay ceelashan maalgelintooda oo ugu horeyso Islamic Relief UK iyo hay'adaha kale khayriga ah ee Bank Islam ka mid yahay. waana dadaalka dadka lagu daryeelayo la isugu tagaayo. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo ceel biyihiisa aan gurin oo isaw macaanadaan. hadda jeer waxaan ugu dhaxay ceelasha markay sanad iyo laba shaqeeyo bay soo gaabtaan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo mid biyihiisa mar walba socdaan. magaaladu way koraysaa. geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xariga ka jaray dugsi tababar oo lagu carbin doono ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo laga hirgeliyay isla deegaanka Tuulo Samakaab. madaxweyne ku soo dhawow cutubiyada ciidanka qaranka ka tirsan oo la salaam kugu diyaariyay. garab saartab wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidamada qaranka oo iyagu ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay faahfaahiyeen ujeedooyinka loo aasaasay dugsigan cusub ee tababarka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa gobolkan waxaa jooga ciidamo badan oo ciidan beeleed ahaa laakiin se la qarameeyey sidii tusaalahaagu ahaa waxa lagama maarmaan noqotay si ciidamadaasi ciidamada kale ula mid noqdaan in tababar la siiyo tababarkaasoo mustaqbalkooga xag darajo iyo xag walba uu ku xidhan yahay isla mar ahaantaana ay ciidamada kale la falgeli karaan. madaxweyne marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa macadkan ama iskuulkan tababarka ciidamada sidaynu ognahay ama siyaasaddeenu isla qaadanay waxaa jiray ciidamo badan oo aan tababar qaadan ciidanka qarankana ka mid ah. ciidanka markaasi la isu soo gaarsiiyo tababarkooda iyo xirfadooda iyo skillkooda ama wanaag isla qorsheynay inaynu markaa tababar dadejina khaasatan gobolkan Sool iyo nawaaxigiisa ma iskuulka ugu horeeyay weeye insha Allah inoo fududeynaya hawshaas. gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xariga ka jiray dugsigaasi ayaa ka soo jeediyay hadal lagu tacalluqa ahmiyadda uu dugsigani u leeyahay tababarka ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. dugsigan oo nagu talagalay inuu ku tababaro ciidamada dableyda ah iyo saraakiilba una baahan dhismayntan ka badan waynu wadaynaa ilaa aynu hawliisa wada dhammayno. bilow fiican weeye waxaynu ku ducaynaynaa inuu noqdo iskuulkii dalka waxtara ciidan fiican soo saara loo aayo tababar fiican lagu bixiyo dadaalkana ku mahadsantiin. assalaamu calaykum. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigiisii ballaadhnaa ee uu hogaaminayay markii ay soo gaareen deegaano ay ka mid yihiin iyo Goori, Tuulo Samakaab iyo Adhi Cadeeye waxaa si baaxad leh ugu soo dhaweeyay shacbiga ku dhaqan deegaanadaasi oo aan u kala harin
soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa shacbigaasi dhammaantood waxa uu la dhex lugeeyey deegaanadaasi ay ku soo dhoweynayeen iyada oo gebagabadiina madaxweyne muuse biixi cabdi lagu guddoonsiiyey faras magaalada ari caddeeye garaad jaamac garaad ismaaciil oo faraskaasi guddoonsiiyey ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa gobolka sool madaxweynihii dalka waa ku soo dhoweynaynay dalkaagii weeye faraskana naga guddoon anigoo ku hadlaya dhammaan shacabka gobolka sool oo dhan aad baa u mahadsantihiin gobolka sool faraskana dee gammaanku waa hadiyadda gobta marka waa laga filaya sool hadiyadda ugana gobta oo kale waana xeradii dee dhaqanka fardihi nugaalay marka aad iyo aad waa mahadsan waan ka guddoonnay waana faras qaran madaxweynayaasha hadiyaddooda qarankaa leh qofku ma laha waa hadiyad qaran inta laga kaxayna waad sii dhaqaalaynaysa geesta kale madaxweyne muuse biixi cabdi iyo wafdigiisu intii aanay ka soo anba bixin magaalada caynabo ee xarunta gobolka saraar waxaa halkaasi uu ka soo dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee degmada caynabo oo la bilaabi doono dhismihiisa waxaana halkaasi ka hadlay maayarka magaalada caynabo iyo guddoomiyaha gobolka saraar waxaana hadalladoodii ka mid ahaa muddo bil gudaheeda waa dhagaxdhigii afraad ee caynabo loo dhagax dhigo waana horumarka istaba socda ee xukuumadda waxaa garoonka maanta waxaynu dhagax dhigaynaa garoonka kubadda cagta ee caynabo kaasoo ka mid ahaa baahiyaha ugu waaweyn ee muxuu ahaye caynabo sababtoo ah carruurta kubadda ciyaarta culis badan bay nagu hayeenoo waagii baryaba waxay odhan jireen garoonkii maan la dhisayn madaxweynuhuna marka horu ballan qaaday inuu garoonkaa dhisi doono ballankii madaxweynahana way sugayeen aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahad celinaynaa inuu ballankii furiyey wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah waa ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi uu ballan qaaday kaasoo uu shalayna kaga dhawaacay fagaaraha khayriyadda saddexdii arrin uu kaga dhawaaqay bay ahayd horena uu u ballan qaaday marka waa garoonka waxaa la yidhaha gandi stadium cabdicasiis maxamed maydhax axmed jaamac faarax telefishinka qaranka somalilan laascanood